dhinaca waxqabadka haddaan kusii socdo waxaa lagu abaabulay shacabka sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhinaca horumarka ku aadan xoogga shacabka. sidoo kale waxaa shacabka lagu abaabulay in ay aragti midaysan ka qaataan howlaha horumarka waxna u wada qabsadaan. waxaan dabagal joogto ah ku samaynay ka jawaabidda baahiyaha degdega ah, sidoo kale qancinta shacabka. waxaa la dhaadhiciyey tababarka hogaaminta degmooyinka ee xisbiga barwaaqo, taas oo ay ka faa'iideysteen xubnaha hogaaminta dhexe, kuwa hoose iyo xubnaha xisbiga caadiga ah. waxaa la dhaadhiciyey qorshayaashii kala duwanaa ee jihada xukuumadda. sidoo kale waxaa la shaqo geliyey guddiyada abaabulka xisbiga ee heer gobol si looga midho dhaliyo yoolashii xisbiga u yaalay. waxaa shacab dhan lagu abaabulay 165,230 kun. waxaa lagu abaabulay dhinaca aragtida dimuqraadiyadda iyo hirgelinta waxqabadka horumarineed ee kaabayaasha kala duwan. waxaa la hirgeliyey nidaamka cadcadaanta, isla xisaabtanka, sidoo kale taabagelinta qorshayaasha. waxaa la taabageliyey midnimada hogaaminta iyo ilaalinta hantida dowladda. waxaa la hirgeliyey nidaamka hay-ad ku shaqaynta dhammaan heerarka kala duwan ee sistamka dawliga ah. halkan waxa weeyaan waa kormeerkii hogaaminta heer gobol ee xarumaha adeeg bixinta. hogaaminta heer gobol ayaa 12 jeer kormeertay dhammaan xarumaha adeeg bixinta gobolka ku yaala si loogu galo tayada adeeg bixinta ee xarumaha siiya bulshada. waxaana la saxay guldaloolooyinkii ka jiray adeeg bixinta sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo wixii lamid ah. waxaa kaloo la dabagalay shaqagalka hogaaminta heer degmo. dhaliilihii la arkayna galka qiimeynta ayaa loo geliyey, waxaana la siiyey jiha sixitaan. dhinaca waxbarashada, halkani waa furitaankii dugsiyada sanadka. waa ardaydii sawiradeeda aragtaan si aan waqtiga uga faa'iidaysano. coverageka sanadadii ugu dambeysay 13, 14 ilaa 15, 13 wuxuu ahaa 52%, 14na 57, sanadkana waa 62. halkan kadaatana waa xoogaha ardayda qaatay imtixaanka fasalka 8aad sanadkan kadaata bishii inaga tagtay. waxay ahaayeen tiradoodu 1335 arday, dhadig iyo labna waa sidaas. halkanina waa ardaydii oon u furayno. halkaad aragtaan waa anigoo furahaya imtixaanka degmada Sagag 8aadka bil ka hor. ardayda fasalka 12aad ee la filayo inay fadhiistaan imtixaanka fasalka 12aad ee sanadkan waa kuwa la rabo inay fadhiistaan bishan aakhirkeeda. waa 431 arday. maxaan ku rahaa qaybahay kala yihiin shaxda ayaad ka aragtaan. waa sawirro muujinaya fasalka 12aad diyaargarow ay samaynayaan. xogta dugsiyada gobolka ee B waa 45, formal waa 74, dugsi sare waa 11. xogta diiwaangelinta ardayda cusub ee sanadkan waa iyadana waa siday kala tahay. waa ogolaaska waxa weeyaan totalku waxa weeyaan qorshuhu wuxuu ahaa 7,243 in la diiwaangeliyo. waxaa lagu guuleystay 5,440, percentage ahaan 75 bay noqon. grade 1 wuxuu noqonayaa 12,238 ayuu qorshuhu ahaa. 8,812 baa hirgashay 72. ardaydii hore waxay ahayd waad u jeedaan halkan aad ka aragtaan 42,988. kuwa cusubna waa 14,251 wadar ahaan 57,239 ayay noqonayaan ayagoo shaxda ku jira. qorshuhu wuxuu ahaa 63,288 in ay la gaarsiiyo. waxaa fulay 57, percentage-kuna 90 ayuu noqonayaa. waa xogta barayaasha halkanina. barayaashu waa 753, dhadig iyo labna saasay kala yihiin. waa heerkooda aqooneed halkanina waad ujeedaan. haddaan kasii socdo, tanna waa abaabulkii dhanka waxbarashada iyo wacyigelinta aan samaynay sanadkan kadaata. waa sawiradii shirarkii degmooyinka Xaraarey iyo degmada Sagag iyo meelo lamid ah. waxbarashada dadka waaweyn halkanina weeyaan oo qorshuhu uu ahaa inay sanadkan kadaata qorshuhu uu ahaa
5,715 waxaa fushay 4,777 percentage aan wadadkii waaweynaa oo qalinka iyo buugga isu dul saaran yahay sawirradii baad aragtaan iyagoo fadhiya waa intuu soo itaabsiyey xogta ardayda baahida gaarka ah qabta waa 338 arday halkanina waxaa weeye waa saamiga gashiga waxaa weeyaan xogta isbarbardhigga weeyaan ardayga iyo buugga ardayga iyo baraha ardayga iyo kursiga ardayga iyo fasalka waan ka soconayaa si aan waqti inooga faa'iideeyo agabka waxbarasho ee ardayda danyarta ah ee loo qaybiyey sanadkan wuxuu ka kooban yahay buugaag waa intaas 6,421 qalimaan boorsooyin uniform inta ka faa'iidaysatay waa muhiim waa 4,214 arday waa iyagii oo loo qaybinayo sawirrada aad aragtaan degmooyinka oo kala duwan aad aragtaan halkani waxaa weeye dhiirigelin aan u samaynay gabadh bara ah oo runtii aad baraha bulshada aad ugu arkayseen dhowr bilood ka hor ama 2 bilood ka hor waa Faadimo Maxamuud Cali waa degmada Sagag qabalaha la yiraahdo Karim Barkhadle gabadhani waxay ku caan baxday Soomaalida ayaa waxay ku mahmaahi jirtay oo haldhigu ahayd halkaagana dhigo hashaadana dhaqo waa waagi baadiyaha la joogay hadda gabadhan waxay ku caan baxday carruurteeda oo ay dhaqato iyo dadkeeda wax barto sidaa darteed baan abaalmarin siinay shahaado sharaf iyo qadar lacag oo dhiirigelinaha ayadoo wiilkeeda xambaarsan ayay sawirada dhigaysay baraha bulshada ayaa ka aragteen halkan kadaata halkani cunuga yari waxa weeyaan waa cunug yar oo degmada Sagag ku nool diyaaradda ayuu kiciyay diyaarad daroon sahay nabad samaysay hadda wuxuu kaloo u dhaqaajiyay tareen waa arrin xaqiiqo la taaban karo Sheekh Xasan Daadi waa xitaa guddoonsiiyay maxaan ku dhahay shahaado sharaf iyo abaalmarin annaguna abaalmarin baa guddoonsiinay waa diyaarad duulayso caadi ah tareenna uu dhaqaajiyay sawirkiisa ma hadda ku jirin marka cunuga yar in la dhiirigeliyo ayaan go'aansanay ruuxa caafimaadkuna marka waxaa ka jira gobolka 13 health center oo midi uuna hadda functional ahayn oo qalabaynta ay ku socoto iyo 12 shaqeeya ruguhuna waa 64 hal hospital oo darajada koowaad ah 77 isku noqonayaan xarumaha dhammaan way wada shaqeeyaan ka qalabaynta hadda ku socoto 12 kale way shaqeeyaan ruguhuna 4 ayaan shaqeynin gadaal ayaadna ka arki doontaan iyo degmooyinka yihiin ambalaasiga gobolka ka shaqeeya waa 10 ambalaas iyagoo degmooyinkii oo ka mashaariicdu ay marayaan degmooyinka gobolka waad u jeedaan lacagta la geliyay 58,522,000 percentage-kuna waa 90 meel fiican ayaa maraysa waa degmooyinkii iyo waxyaalaha la bixiyay iyo mashaariicdii degmo walba iyadoo sirsiran iyo waxa waa intii hardhiga ay waliba weeyaan waa degmooyinkiina sii socda shaqaalaha la goosti gareeyay runtii waxyaalo ku dayasho mudan baan sameynay sanadkan kadaata aan islaahayna gobol nagaga sarreeya ma jiro shaqaale 438 shaqaale ayaan goosti garaynay oo lacag badan oo maxaan ku dhaahdaa fakad aha iyo double IT iyo wax la mid aha degmooyinkuna si ay u kala sarreeyaan wadaagtan garba ugu sarreysa 130 ceel weyne 102 marka degmooyinkuna si ay u kala sarreeyaan lacagta waan soo celinay dhanka dhalinyarada iyo ciyaaraha dad ka badan dhalinyaro ka badan 12,760 ayaa la siiyay wacyigelinta ku saabsan dhibta ay leedahay isticmaalka balwada iyo wixii la midka ahaa degmada dhuxun ayaa horyaalka ahayd gobolka oo ka qayb gashay horyaalka heer deegaan gobolku waxaa la sameeyay iyagan ciyaartooyga gobolka ayaan soo diray hadda dhammaaday heer deegaan kaalinta waxaan galay saddexaad waxaana qaadnay koobkii anshaxa oo koobka ugu weynaha faqaarayaga la qabtay waa 105 dadka looga faa'iideeyay 230 labiyo dhadigna saas ayay inaajidayo waad garanaysaan oo wasaareynta sharciga iyo wixii la mid ahaa iyo horumarka sida ajendayaasha xukuumadda sida dhaqoor dheefsi iyo dalag iyo daryeel iyo wixii la mid ah xisbiga dabagalka iyo taakulaynta waa shirarkii guddiga fulinta waa kulamadii unug asaasiyada waa liiga haweenka waa dhaadhicinta tababarka natiijada u bedel guusha ee xisbiga kulamadii hogaaminta heer deegaan ay yimaadeen oo wasiirad khadra ay hogaaminayso waad u jeedaan waa shirarkii tababarkii hogaaminta dhexe
وبهره يو كوي عن هرو صوم مرة ودقيقة بس يو كلمة thank you أدود ما تسنتي